assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhowaada qodobada wararkeena ugu doorka roon waxaana ka mid ah Soomaaliya oo markii labaad ay ka talinayso haweeney madaxweyne Dani oo looga yeeray dhankaas iyo Imaaraadka Carabta yaa u yeeray muxuuse ku saabsan yahay safarkiisu warkeena ayaad ku maqli doontaan iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga daawadayaal ku soo dhowaada warkeena oo faahfaahsan markii labaad ee taariikhda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa wadanka hogaaminaya xildhibaan Sacdiye Salaad ayaa haatan ah kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu wadanka iskaga ambabaxay gudoomiyihii golaha shacabka mudane aadan madoobe xildhibaan Sacdiye Salaad ayaa heshay jaaniskan oo ahaa markii labaad Sacdiye Salaad ayaa taariikh u dhigaysa dimuqraadiyadda geeska Afrika iyadoo noqotay markii labaad kusimaha madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Sacdiye ayaa haatan wadanka ka arrimisa kana ah madaxweynaha rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku imaadaa magacaabis madaxweyne sidaa darteed awood uma leh inuu noqdo kusima madaxweyne maadaama uu ku yimaado magacaabis uusan ku imaan habka qaabka doorashada sidaa darteed Sacdiye Salaad ayaa maanta ka awood badan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Barre madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku ambabaxay wadankaas iyo isutaga Imaaraadka Carabta ilo xogagaale ayaa sheegaya madaxweynaha looga yeeray dhankaas iyo Imaaraadka Carabta safarkan ayaa ah midkii ugu horeeyay uu ku aado dhankaas Imaaraadka Carabta kadib guuldaradii ka soo gaartay filla Soomaaliya Imaaraadka ayaa la sheegayaa inay Dani ugu yeereen inay kala xisaabtamaan lacagihii ay ku taageereen doorashadii uu ku galay filla Soomaaliya Dani ayaa ka soo qaatay lacag aad u fara badan oo gaaraya malaayiin dollar una sheegay Imaaraadka madaxdooda inuu meesha ka saari doono farmaajo lana wareegi doono xilka dowladda federaalka Soomaaliya kadibna u fulin doono danaha Imaaraadka ee kaga aadan dowladda Soomaaliya Dani ayaa kala soo kulmay doorashadaasi guuldarro aad u weyn dhanka madaxweynaha iyo dhanka ra'iisul wasaaraha labadaba Dani ayaa la filayaa inuu Imaaraadka ka dhaadhiciyo inuu lacagtii ay ka qaateen xildhibaanadii dowladda federaalka Soomaaliya codkiina ay ka siiyeen Xasan Sheekh iyo farmaajo sidoo kale Dani intuusan ka duulin Garowe ayaa xildhibaanada maamulka Puntland ku gacan saareen magacaabis uu soo sameeyay madaxweyne Dani halkaas ay ku diideen inay ansixiyaan mas'uuliyiin sarsare oo u soo magacaabay maxkamadda sare ee Puntland ayaa ka taagan maalmahan isjiid weyn oo ku aadan dhoofinta geed quwaaxa halkaas maxkamadda sare ee Puntland ay xukumo waaweyn ay ku riday mas'uuliyiin kamid ah dowladda Puntland kadib markii lagu eedeeyay inay dhoofsadeen geedka loo yaqaan geed quwaaxa Dani ayaa u muuqda mid difaacaya mas'uuliyiintaasi maadaama ay yihiin saaxiibo aad isugu dhow Dani ayaa shalay la gaarsiiyay qoys weyn kadib markii ay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland uu ku dhawaaqay inay waayeen codkii ansixinta mas'uuliyiinta uu soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan si heer sare ah loo soo agaasimay la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Turkiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga warbixiyay halka ay xukuumaddiisu wax marinayso jaaliyadda sidoo kalena u sheegay waqtiga yara ay hadda inta xilka hayeen inay aad ugu mashquuleen caqabadaha dhankaas iyo abaaraha madaxweynaha ayaa jaaliyadda kula dardaarmay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha una ka codsaday jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Turkiga iyo ganacsatadaba inay furaan jeebkooda una hiiliyaan shacabkooda Soomaaliyeed ee u dhimanaya macaluusha madaxweynaha ayaa la rajeynayay inuu la kulmo madaxweyne Erdogan maanta ila xogagaale aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne Erdogan uu maanta ku mashquulsan yahay hanaanka caafimaadka ee dalkaas Turkiga sidaa daraadeed waxaa loo sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu iska sugo ilaa maalinta berri ah la kulanka madaxweyne Erdogan maadaama madaxweyne Erdogan uu ku mashquulsan yahay hanaanka caafimaadka ee dadweynaha Turkiga daawadayaal waa naga intaas warkeennii maanta fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale wixii faala ah waxaad noogu reebi kartaan qaybta commentiga mahadsanidin